Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan idin salaamay dhammaan saaxiibada qaaliga ah ee ku xidhan channelkeena YouTube ee Maxamed Wardi Official. Soo dhawaada saaxiibayaal dhammaantiin. Maanta muuqaalkeena waa muuqaal muhiim ah. Maanta muuqaalkeena waxaan ku baran doonaa lacagta rubalka ah ee Russian currency-ga, lacagta Ruushyaanka ah ee kuugu jirta baayeerkaaga sidee dollar ugu bedelan kartaa. Maadaama maalmihii ugu dambeeyay saaxiibo badan ay soo weydiinayeen haddaba lacagtan rubalka ah ee lacagta Ruushyaanka ah sida dollar lagu bedesho ayaynu maanta muuqaalkeena ku baran doonaa. Muuqaalkan si degan u daawo, saaxiibadana u sii share garaysa uga faa'iideystaan. Saaxiibayaal halkan waxa ka muuqda lacagtii Ruushyaanka waxay noogu jiraa 30 ayay noogu jiraa oo lacagta Ruushyaanka ah. 30 kaas wuxuu u dhigmaa 31 senti. Waad aragtaan waa ka idiin muuqda 30 ka lacagta Ruushyaanka ay noogu jiraa wuxuu u dhigmaa 31 senti ayuu u dhigmaa. lacagta dollar waxay noogu jiraa $2.17 senti halka wata kaaga muuqata $2.17 senti ayay noogu jiraa. $2.17 senti ayay noogu jiraa. Marka lacagta dollarka halka ay noogu jirtaa ayaynu lacagta Ruushyaanka ku shubaynaa oo dollar baynu u bedelanaynaa. Haddaba ugu horeyn talaabada koobaad ee qaadis waxay tahay halka hoose ee exchange soo maaragtid halka hoose optionada hoose halka ka muuqdaan halka exchange ay ku qoran tahay halkaas exchange ayaad ku dhufanaysaa. Markaad ku dhufato halkan ayuu kula soo gelayaa qaybtan exchange-ga waxa lagu talagalay lacagta baayeerka kuugu jirta inaad ku kala bedelato ayaa lagu talagalay. Marka halka Bitcoin halka sare Bitcoin ayaynu bedelaynaa waxaynu ku bedelaynaa lacagta Ruushyaanka rubalka ayaynu ku bedelaynaa waynu taabanaynaa rubal markaynu lacagta Ruushyaanka halka aynu ka dhigno halkan hoose USDT dana waynu bedelaynaa waxaynu ka dhigaynaa dollarka caadiga ah ayaynu ka dhigaynaa taas sare ayaynu ka dhigaynaa markaynu ka dhigno haddaba halkaas sare ayaynu lacagta Ruushyaanka ayaynu bedelayno gelinaynaa halkan waxay nooga muuqda inta lacagta Ruushyaanka ayaynu haysano balansigeena ayaa halkan inooga muuqda halkaas halkan waxay nooga muuqda inta dollar aynu ku haysano oo $2.17 senti ah haddaba halkaas sare waxaynu gelinaynaa lacagtii Ruushyaanka ayaynu gelinaynaa waa 30.90 ayaynu gelinaynaa lacagta halka ay noogu jirta ayaynu halkaas sare gelinaynaa. Haddaba markaynu lacagta halkaas sare gelino halkan hoose wuxuu inaga tusayaa intaynu ku helayno intay dollar ahaan lacagta Ruushka inugu bedelayaan ayaa halkan inaga tusayaan. Marka waxaynu ugu bedelayaan 28 senti ayaynu ku bedelayaan. Markii hore 30 senti ayay ahayd laakiin fee baa ka go'aya. Markaad isku bedelayso lacagaha fee baa ka go'aya. Fee yar bay ka goosanayaan 2 senti ama 1 senti wax noocaas ay ka goosanayaan. Markaad ma garanaysaa kala bedelayso lacagta aad kala wareejinayso. Marka waxay naga goosteen intii yar fee-gii bay naga goosteen waxayna siiyeen 28 senti ayayna siiyeen. Marka lacagtii Ruushyaanka ahayd ee 30.90 ka ahayd aynu bedelnay waxaynu ugu bedeleen 28 senti. Waxaynu taabanaynaa halkan exchange ayaynu taabanaynaa. Halkan ayaynu taabanaynaa marka lacagtii Ruushyaanka ahayd ee taasar ahayd waxaynu ugu dhici doontaa dollar ahaan oo dollar ayaynu ugu bedelayaan. Marka exchange ayaynu taabanaynaa markaynu taabano halkaas sare wuxuu nagu sheegayaa inaynu ku guuleysanay in lacagtii aynu bedelnay. Kadib waxaynu ku laabanaynaa qaybtii balansigeena ayaynu ku laabanaynaa markaynu ku laabano refresh hadaynu dhahno waxaad halkan ku aragtaan in lacagtii Ruushyaanka meeshii ay ka baxday ayaad ku aragtaan. lacagtii Ruushyaanku meeshii way ka baxday lacagteenina waxay noqotay $2.45 senti. Markii hore waxay ahayd $2.17 senti. Marka lacagtii Ruushyaanka ahayd waynu bedelnay dollar baynu u bedelnay qaybtii dollarka ayay noo soo gashay. lacagteenina waxay noqotay $2.45 senti ayay noqotay. Marka qaabkaas ayaad lacagta u bedelanaysaa. qaabkaas ayaad lacagta u bedelanaysaa waa qaab yar oo fudud. waxaan rajeynayaa saaxiibayaal iminkayna si wanaagsan u fahanteen muuqaalkan waad wax badan ka faa'iideen. waxaan idinka codsanayaa saaxiibayaal Facebook page-keenan cusub ee Maxamed Wardi Official inaad soo follow garaysaan. saaxiibayaal soo cumaamada oo followda soo taabta saaxiibadiina u sii share gareeya. Telegram channel-keenana ku soo biira oo join soo dhaha si wax walba cusub aad ula socotaan. sidoo kale saaxiibayaal waxa jira group WhatsApp waan sameeyay ayaa jira kaana insha Allah ku soo biira. linkiyadii oo dhan waxay yaalaan qaybta hoose muuqaalka ee description-ka ayay yaalaan. haddii akoonkan baayer aanu ku samaysnayn waxa jira muuqaalan ka sameeyay qaabka loo sameeyo akoonka baayer muuqaalkiina waxaan ku soo dhigaya qaybta hoose ee description-ka ee muuqaalka channel-keena YouTube-ka Maxamed Wardi Official-na uu ku jiraa muuqaalkaasu waad soo daawan kartaa. aad baad u mahadsantihiin saaxiibayaal meel walba joogtaan
muuqaalkana like ta saara saaxiibadiina u sii share gareeya haddii aan nagu cusubtayna nagu soo biir oo subscribe ta saar gambaleelkana furo si muuqaal walba cusub uu ku soo gaadho waad naga faa'iidi doontaa waad mahadsan tahay waa walaalkiin Maxamed Wardi Cali oo idin leh oo inoo muuqaalka xiga insha Allah